abuukura waxa loo dhahay mataqaana war baalkan qof kale sameyn kara ku soo celin kara malaha zola ku soo celin kara zola leheshi ya ay kula heshisay ma fahamtay 500 باونا كقادتي أبوكر مهدي أبوكر بما شقيا نيجا بما شقيا أبوكر زول مسيس 500 باون يا أو يوتيوب كوكسو عليه أسيجا حق الريي زولا حق الريي يوتيوب أساجب سري 500 مكاقاتي لا اسكبده رشكا لو داي أديك أنا آمنتي I'm very sorry my brother حبر فينوس أنا أقول الله دقة هذه إديني warkan ha ku gaaro waa maqlaysaa kulay ya alla kacabsi ma taqaanid adigana Abuukar Mahdi youtube-kiisa markii la jabsaday yaa jabsaday hadda aniga leeyahay dadweyne dhageystayaa ninkan ya zool abo yaa jabsaday waree adaa jabsaday remember markaa jawisane ma taqaana oo ilaahay duu ku ron yahay waxaad ku nabtay rashka ka shaqeynay University TV Zombie Apocalypse الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن مدنياشي مرويك مرتشرفك ماموس كبدن سلام صدريجي سنبض الصحاف ساني وتمدا يان صعبة يدين كوودا سمو قدون كيسنو ودنكينا ودي أقرأ مخال عصب مقال كنا وحو كساب سنة هاي بوس باس محا قيلدا ككيني نحو لقر قرية iyo waliba arimihii maalmahan socday ee u dhaxeeyay Abuukar Mahdi iyo qaar kamid ah jilayaasha Soomaaliyeed oo cirka isku sii shareeray qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan saxaaf ayay la socodsiinayo saxaaf janal waad kala socotaan u diyaar garoobay iyadoo dhameystiran dawadayaal sidaad la wada socoteen maalmihii ugu dambeeyay waxa baraha bulshada qabsaday khilaaf hareeyay shakhsi la sheegay in uu ku shaqeysan jiray qaar kamid ah jilayaasha iyo fanaaniinta Soomaaliyeed sida iyagu hadalka u dhigay shakhsigaasi ayaa waxa uu yahay sida ay sheegeen Abuukar Mahdi waxaana ka cabanaya dad aad u fara badan oo uu kamid yahay boss baas oo aan caawa soo qaadan doono waxa sidoo kale ku jira dadka ka cabanayo fanaanada weyn ee Faadumiin isla markaana ah jilaa iyo waliba dad kale oo aad u fara badan oo uu qayb ka yahay Farax Murtille Abuukar Mahdi waxa ay dhamaantood ku wada eedeeyeen in uu ku shaqeysan jiray isla markaana aanay wax lacag ah siin jirin inta ay la shaqeynayeen waxaan la soconaa in teamkan ay ahaayeen kuwo isku duuban adduunkana gilgilay kadib markii ay soo saareen riwaayad magaceeda ay ku sheegeen qoto qoto teamka waxa ka tirsanaa fanaaniin aad u fara badan waxaana sababaha ugu badan loo daawanayay kamid ah in dad caana ay ka soo dhax muuqdaan qoto qoto ama riwaayadii qoto qoto waxaana dadweynaha aad ay u xiiseynayeen markay arkeen qaar kamid ah fanaaniinta oo isu bedelay jilayaal isla markaana waxyaabo comedy ama qosol leh ay ku soo dhax dareen muuqaaladaasi sabab waxa jirta in muuqaal ugu dambeeyay uu soo dhigay boss baas uu kaga hadlay arrimo fara badan isla markaana uu fashiliyay dad fara badan oo caan ka ah baraha bulshada oo ay ku jiraan saxafiyiin ayaanan ku dheeraan qisada barnaamijkan ama arrintan hadalhaynta badan ee baraha bulshada qabsatay laakiin markaan waxaan guda galayaa muuqaalkii ugu dambeeyay oo boss baas uu soo dhigay iyo waxa ka keenay karka ilan Soomaali waxay dhahdaa dhariga waxa karka ka keenay waa kula sab ogtiin aniga kooxda inaan ka baxay 28 November 2020 inaan caday inaan ka baxay kooxda xujo okay halkan waxaan kala hadlayaa walaalkii Abuukar Mahdi still wax ma kama hadlo aniga laakiin wax danteeda ayaan ka hadlayaa idageyso dhagahaadana ideemi waa wax aad ku dana anigana idana جيت أنكو جيت وحاول قعمد وياي بوس باس waxa uu markii hore cadeeyay in Abuukar Mahdi walaalkiisa hay wax dhibaataan oo san haatan u qabin bal maxaa raaci inta isticmaali kartid ama igu shaqeysan kartid waa igu shaqeystay waa isticmaashay hadda iyo dan waxa ku dan anigana ii dan ah waxaan ka codsanayaa rakaata ma waa codsi walaalow كلب أن ليه هاي
inaadan soo gelin filinka la yirahdo xujo ever never weliba lacagta isinis waxaan ka jeclahay clipkayga adoo soo gelin aan lacagta hata ma rabi filinkayga la iida filin aan ku jiro haba soo dhigin af Soomaali ma tahay umaday marxaati ahaada Abuukar Mahdi walaalo macaano clip aan ku jiro YouTube ha soo dhigin ma fahamtay ama kala deesh dacwo tagtana wallahi diyaar nahay I can get lawyer no problem waayahay shakhsigan la yiraahdo Boss Bass wuxuu horay ugu tirsanaa teamka Abuukar Mahdi oo waxa uu ahaaba door muhiim ayuu ka ciyaari jiray riwaayadaha ama filimaanta la sameeyo haba ugu dambeeyay kii xujo waxa uuna mar walba mathali jiray doorka waxa ay carabta u yaqaaneen shariirka ama ay Soomaalidu u yaqaaneen laadarka waxa uuna ku soo bixi jiray marka uu jirayo shakhsi Afrikaan oo luqadda Englishka ku hadlayo isagoo silsilada iyo waxyaabahaas wato waxa uu ka dalbaday Abuukar Mahdi in muuqaaladiisa uusan soo dhigin YouTube-ka wixii laga bilaabo taariikhdan uu isagu sheegay waxa uu leeyahay ma ahan rikaato laakiin waan ka dalbanaya waxa uu soo hadal qaaday doona shakhsiyaad uu ku sheegi doono in ay yihiin dadka dhabar jibinayo Abuukar Mahdi bal aan sii guda galno daawakaati iyo hinjawaadna ma runaan ku sheega kooxdu waxaan sheegay aniga oo on YouTube-kuna ku jira 28 November inaan ka baxay wixii ka dambeeyo without my permission ma soo dhigi kartid you feel me hey I don't want to talk to your puppies ma fahamtay you know the puppy you know the puppies right yeah those puppy you know inta scream so for this time hadlo I ain't gonna say nothing those puppy I saw this including ninka la dhaho what's his name midka bidaarta qabo Zola yeah that's the one hata ku soo dirtid I don't give a toss what I need is my money I mean what I need is peace I don't even need your money waayahay waxa dheesha soo galay maalmahani oo dhan kuma uusan jirin markii laga reebay in muuqaalo laga dheehan kari in uu Abuukar Mahdi ku taageerayo ay dadkani dareemeen laakiin wuxuu si toos markaan u weerarayaa Cabdinaasir Zola oo shakhsi Soomaalidu ay aad u wada garanayaan qaybta saxaafadana lug weyn ku leh bal maxaa Cabdinaasir Zola soo dhaxgeliyay arintan aan wada aragno ma fahamtay Zola adigana waa isnaqaanaa saaxib be careful I mean this is a reality ma fahamtay marka whatever you guys do you do it I don't give a toss wuxuu dhahay inta soo fariisto meesha dadka waxas dhahan wax ka jira male listen boqol qof ka soo awaaday boqol qof been ay sheegan asarun sheega you know why what he give you money I know you know Zola lacag inuu ku sii ana og indheegaan ku arkay waayahay eeda Boss Bass uu jeedinaya Cabdinaasir Zola waxay tahay in uu garab siinayo Abuukar Mahdi waxa uuna ku bayaaniyay hadalkiisa in ka keenayo ama waxa uu Cabdinaasir Zola u soo fariistay baraha bulshada oo arinkan ugu hadlay ay tahay lacaga yar yar uu ka helo Abuukar Mahdi waa sida boss hadalka uu dhiga aniga ma ahan markuu yiraahdo I know you know waxaan soo xasuustay I know good now fadmin ayaan soo xasuustay bal markan waxaan bixin doonaa qaybta ugu dambeeyay xalka arinkan laga gaari doono laakiin aan sii dhameystirano isla markaana aan fiirino waxa karka ka keenayo Mr. Boss Bass ma fahamtay kalbida hata markaan joognay Djibouti adaa lagu soo diray markaan wax sameeyno adiga YouTube ku soo gelinay marka waxa la leeyahay saaxiibkayga Abuukar war fiiri I knew you before him Abuukar Mahdi shalay baratay 20 sano isma taqaanin been dadka u sheegin adin ma taqaana 20 sano isna qaana why you lie man Zola I know you god damn it marka you playing in wrong side nigga ma fahamtay I had the respect for you I ain't gonna lie respect ayaan ku haya adiga Zola lakin now I'm out of passion we will see wuxuu leeyahay Boss Bass dooqaadka ayaa iga dhamaaday kelimadaha Ingiriiska uu adeegsanayo badankood ma wada tarjumayna sababtoo ah waxyaabo anshax saxaafadda ku xun
ayaa ku jira. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan uu sheegaya wuxuu yidhi in cabdinaasir zolla iyo bosbas ay isgaranayeen ka hor abuukar mahdi. wuxuu sidoo kale caddeeyey in youtube-ka abuukar mahdi uu maamulo ama gacanta uu ku hayo cabdinaasir zolla. haddaba siday ku suuragalaysaa youtube-kaas aan wada garanayno in ay malaayiinka qofood daawadaan in cabdinaasir zolla uu u dhiibo abuukar mahdi? mase jirtaa in 20 sano ay is yaqaaniin cabdinaasir zolla iyo abuukar mahdi? bal haatan ayaan si arkayna. marka abuukaro, this is the last warning, is a warning ma fahamtay? mar dambe clip aan leeyahay ha soo saarin youtube-kaada, waa maqashaa umaleynaa. okay, it's my right, anaa iskale, not you. camera igu iibsatay, wax kasta igu samaysatay, but this time we will see. cayaar waa gelinka dambe. horta markii loo fiiriyo hadalka bosbas wuxuu u muuqdaa mid nabadeed, sababtoo ah qofka haddii uu ku yiraahdo mininkeyga bax iyo maalkey si meel loo dhaaf mala ayay soomaalida dhahdaa. haddii uu ku yiri kilibyadeyda ha adeegsanin wixii ka dambeeyo xilliga aan ka tagay kooxda, war qaldan ma ahan. waxaana isleeyahay abuukar mahdi inuu taas samayn doono iyadoo xaaladda ay saan dhinta u tahay. suuragal ma aha shaksi aad ismucaaradaysaan in muuqaaladiisa aad kusoo darsato clip. waxaan abuukar mahdi leeyahay haddaba haddii uu boos muhiimu kugu jiray, qof kaloo muhiimu isaga aad ku bedeshay, raadso ileen xaaladda meeshaas ayay maraysaa. weli waxaan fahmi lahay cabdinaasir zolla iyo abuukar mahdi waxa ka dhaxeeyo iyo bosbas waxa uu arrimahooda ka ogyahay. muday idinkan markhaati ahaada. marka dad badan ay dhahaan fiiri, intaan sabri kara waan sabray too much, waan sabray si xaq dhaafan u sabray. maxaa lahay doonfaarka ficil la-aana loo adaabaa, but it's not me. I started you once, twice, but this gone too far. zolla adiga hataa waa ogtahay inaan ilaaha aamini ku aamini, adiga hataa inaan ikhyaantay waa ogtahay zolla. ya cabdinaasir zolla adiga hataa waa ikhyaantay aniga. bosbas wuxuu leeyahay cabdinaasir zolla adiga hataa waa ikhyaantay. bal maxay tahay khiyaanada uu sheegayo? maxaana arrinkan soo geliyay cabdinaasir zolla aan wada garanayno inuu yahay aqoonyahan Soomaaliyeed, saxafi Soomaaliyeed, isla markaana dhanka IT-ga ku takhasusay. ninka aad dhihi jirtaan ahay abti, remember that? waa la socotaa aniga adigu shaqada Universal waa isla bilownay xilli uusan abuukar mahdi joogin Ingiriis. kuleelkan haatan jiro kuleel kasii badan ayaa imaan doona. lacagaha yar oo abuukar mahdi ku siiyana yani ha ugu danaanin cover, ha u noqon macnaha dawoolin. sababtoo wuxuu leeyahay dadkan dhan oo wada kacay oo 10 qofood kor u dhaafayo ma been bay sheegayaan abuukar mahdi ma run sheegay? hadaladiisa ayay ku jirtaa. Soomaaliduna waxay dhahdaa dhagoolku wuxuu dareemay inuu gardaran yahay markii ay dadkoo dhan farta ku wada fiiqeen. anigu ma dhihin hadallada qaarna waxaa dhahay boos, qaarna waxaa dhahay Soomaaliya waa maamaayo. balansi ka haysan. Who the fuck are you? Don't mess with me, I swear to God, man. umaday raala ahaada, igama aha inaan saan u hadla, ma ahayn. This was not the plan. laakiin dad baa iriixaya, aniga meel iska jiifa liska kay dadaansanaya. aniga dandaansi ma jeclay. marka Zolo runta aan isku sheegno, waxaad tahay war waa ku ogay aniga from A to Z. from 1993, remember Layton meeshii balloon ku ciyaareen oo yarka dhalo ku soo jirtay ku doob bursanay. do you remember that day? anaa ka celi wariyaa. do you remember that day? I'm the one who fucking saved you. yarka aan ka celi waa jooga, wallahi ku soo diraa dabaayo. yarka dawaa weynada oo maleena. you remember that day? had waxaas kaleeysa war dadka ku aqoon u sheekay walaalo macaano. Zolo please, aniga wadadayda ka bax. runaan ku sheega muslim hadaa jirto. I respect you, respect me as a human being. warfiri hatta waxaan ogahay mataqaana abuukar mahdi aad leedahay 20 sano aqal abu maxabeen u sheegayno ilaahay ma ka cabsatido. dhageyso Zolo, midaan ku xasuusina dhagahaada ideemi indhahaadana fur. dhageyso 2016 maxsuusada markii socday qoto abuukar mahdi YouTube-kiisa markii la jabsaday yaa jabsaday. hadda aniga ada leewaay dadweyne dhageystayaa ninkan ya Zolo abu yaa jabsaday. waree adaa jabsatay. remember markaa jawisane
متقانا او الى دو كورونيا واحد كنا بتي راشكا كشقينا يونيفرسيتي تي في يس اور نو بنتي ميا سوك ميد كلام كوشيغا ميد عدينيسان كوشيغا وليب اوكي taas waxaa caddaynaysaa mataqaanaa boosbaas wuxuu qarxiyey arrin aad u qarsanaa oo uu sheegayo inay sir tahayba 2016 qoto markuu socday Abuukar Mahdi YouTube-kiisa ayaa la hagareeyay waxa uuna eedda dhan u saariyay Cabdinaasir Zola ilaahay baa naga og inay run tahay inay been tahay laakiin isaga intaas ayuu leeyahay Abuukar Mahdi maskiin allo mawla ummaka waa ku firi naagtiisa ya Abuukar waxa loo dheer mataqaanaa warbaalkan qof kale sameyn kara ku soo celin kara malaha Zola ku soo celin kara Zola la heshi ya ay kula heshisay ma fahamtay 500 باونا ka qaadatay Abuukar Mahdi Abuukar bema shaqay aniga bema shaqay Abuukar Zola ma siisa 500 باون ya oo YouTube ku soo celin asiga hagareeyay Zola hagareeyay YouTube ka asaa jabsaday 500 nuu ka qaatay لا اسكبده رشكا لو داي ادينا وا امنتي I'm very sorry my brother Soomaalidu waxay dhahdaa dhariga maxaa ka keenay ileen jawaabtu waa kuleelkay shakhsigan waxa uu leeyahay markii uu Cabdinaasir Zola hagareeyay YouTube-ka Abuukar Mahdi waxa Abuukar Mahdi la talisay xaaskiisa oo ku tiri ninkaas ayaa dhanka farsamada kombiyuutarada iyo IT ku fiican isaga ayaana wax ku qaban karo sidaasi ayaa waxa uu leeyahay 500 pound ayaa la siiyay YouTube-kiina sidaa ayuu ku soo celiyay It was a secret I never meant to tell this inay sheega ma ahan ma fahamtay marka ruqiya waxay sameysay inay kula heshiiso adiga iyo Zola marka Zola saasa saaxiib ku noqoteen ilaa hadda lacag siisaa Zola ilaa hadda lacag siisaa Zola anigana dhaxanta qawabka ka shaqeynaa god damn it what do you think I am huh? Take a look at me god damn it take a look this is me who I am take or leave it I'm gonna tell you the truth and how it is though this is my time to shine not you just sitting behind the camera you know what daawada arinta aad bay u kulashahay hadii marba ay bilaabatay in qof waliba uu YouTube inta furto uu dhaleeceeyo Abuukar Mahdi waxa haatan gudboon arimo dhowr ah oo loo baahan yahay in dhamaantooda ay wada eegaan balse aan eego marka ugu dambayso cid uu eedayo boosbaas teeda kale habar Faynuus waxaan ku lahaa dhigahaada ideemi warkan ku gaaro waa maqlaysaa kulay ya alla kacabsi ma taqaanid adigana You know what? إلهي هدا تقانيد الله كعبس هدا تقانيد أو خفت كنا يتهي إلهي الله أكبر نهايو هدا تهي حق أياك هذا اللي هد up to now لجو وها حق كما أذهلين ما فهمت دتك اللي دلموني وأجدا لكن أديك you don't care because ولي قفك بادلك أو مدة قيانو أياك قرب سينوس الله استاغنتاي أديك أنا إلهي أبتسال وحساب تما هور فينوس I ain't gonna lie to you Okay, so keep in mind that mantu adun birna wa aakhiro boss bas waxa uu ugu dambeyn eed u soo jeediyay maamul Faynuus oo uu ku eedeeyay in ay stiil u xaqlinayso Abuukar Mahdi waxa uuna yiri in aakhira lagu xisaabtami doono halkan adduun ay tahay isku soo wada daawadayaal xaaladan aad bay u cakiran tahay waxay gaari doontaa meel xun waxay ku soo dhamaan doontaa xaaladdan saddex waxyaabood kan ugu horeeya waxay ku soo dhamaanaysaa in la isfara saaro oo la isdagaalo because maanta oo dhan qof intuu soo fadhiisto YouTube-ka qof kale ma cayn karo ama ma eedeyn karo ugu dambeyn haddii uu waxa uu rabo uu ka waayo waxa imaanaysa in la isfara saaro qodobka labaad imaan karo loona baahan yahay waxay tahay dadkan in arinkan Soomaalinimo loo xaliyo haddii ay suuragal noqon wayso arinkan in Soomaalinimo loo dhameeyo waxay noqonaysaa in arinkan sharciga wadanka ay joogan loo fiiriyo oo sidaa lagu dhameeyo barnaamijkan uma soo qaadan anigu in aan wax boonbooniyo ama qof aan ku dhaleeceeyo laakiin waxaan u soo qaatay in wanaaga uu ku jiro in arinkan la xaliyo wadaan daawadayaal inta ayaan ku soo koobaya barnaamijkii xisaab dibadeen bilayn barnaamij noocan oo kale uu kulmi doono waa saxaaf channel idin kala Allah idin leh nabadini inoo kulanto sama iyo salaama idin wad ku maasantiin daawashada muuqaalkan bye bye Zombie apocalypse